habeen wanaagsan daawadayaal waxa ku soo dhawaata warka habeenay muuqaal baahiya M24 TV qodobada idin heelna waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Beledweyne xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaa sheegay in si degdeg ah loo dhisayo mudadii shalay ay qarxiyeen al-shabaab barnaamijyada ayaa laga soo saaray shir u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka goboleedyada akhbaraadka caalamka warkayga ku daawan doontana waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha UK ayaa 6 bilood kadib iska xasilay xilka intaasna waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada warkayga haweenimo ugu waaweyn iminkana ayagoo faahfaahsan aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Beledweyne ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Beledweyne halkaas uu ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Yuusuf Axmed Hagar gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeeti Cismaan mas'uuliyiin iyo dadweyne aad u fara badan ra'iisul wasaaraha ayaa booqday xarunta Lamagalay ra'iisul wasaaraha ayaa ujeedkiisa socdaalkiisu yahay xoojinta dagaalka lagula jiro al-shabaab sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan al-shabaab rasuulillah wa alihi wa sahbihi sallam maanta waxaan imid magaalada Beledweyne aanoo safar wadanka uga maqnaa waan runtii ku doortay inaan uga bilaabo ayada dhowr arrimood marka koobaad inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dibisha dib xoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed marka labaad oo runtii arinta darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas oo markii يعني ugu horeysay magaaladan si gaar ah ay u targetsadaan ahayn marar fara badan oo hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankan horay ay ugu wada shahiideen tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Beledweyne dhibaatadii ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen wax kale looma targetsan ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo in loo sheego in ay keligood yihiin in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta waxaan u sheegaynaa marka koobaad annaga oo runtii ka xun dhibaatadii meesha ka dhacday annaga oo u tacsiyeynayna dadka Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay ama naftooda ha ka soo gaadho oo ha u dhintaano ama xoolahoodii iyo hantidoodii ha ka soo gaadho ha ku burburto runtii waxaan leenahay ilaahay sabir ha idinka siiyo ilaahayna wax ka khayr badan ha idinku bedelo nimankii ama khawaarijtii u maleynaysa magaalada Beledweyne inay kaligeed tahay waxaan u sheegaynaa inaysan kaligeed ahayn marka koobaad Beledweyne kaligeed ma aha Beledweyne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa la jira Beledweyne bani aadamka Ilaahay abuuray ee miirka qabo dhan ayaa la jira saadarteed waxaan leenahay Beledweyne kaligeed ma Beledweyne maniyad jabayso Beledweyne jihaadkii ay waday way si 3 jabaartay haddaba wayna si 3 jabaaraysaa hadii la yiraahdo wayna si 6 jabaari doontaa dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay xukuumaddu ugu horeysana ayaga ayay la jiraan dhinac walbana way ka taagan yihiin intaas kadib runtii waxaan rabaa inaan halkan u soo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed haday jirto Soomaalinimo haday jirto muslimnimo haday jirto in wax la isu yahay qof kasto Soomaaliya cid kasto Soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa Soomaaliyeed reer Banaadir aan ka bilaabayo oo aan ku xujisiinayo reer Jubbaland reer South West reer Hiiraan ma aha reer Hirshabelle reer Galmudug iyo reer Puntland iyo reer Somaliland Soomaalinimo haday jirto waxa la idinka rabaa meeshan in la idinka arkaa la rabo dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay halkan yimaadaan oo ay cadeeyaan Beledweyne inaysan kaligeed ahayn Beledweyne inay walaalo leedahay inay dad garab taagan ay leedahay waxaan ka rabaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in ay muujiyaan Beledweyne inaysan kaligeed ahayn
waxaan rabaa dadka qurba joogta inay soo abaabulaan waxaan rabaa in keligood dadka gudaha jooga dagaalkan gelinayna safka hore ku jiraan laakiin dadka qurbaha jooga waxaan ugu baaqayaa dhismaha dhulkan ayaan ka rabaa waxaan rabaa muddo kooban dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxaan ka rabaa inay meeshaan dhisaan muddo 2 bilood aan ka badnayn gurmadkoodaan rabaa qof kasto Soomaaliya waxaan rabaa beledweyne inuu yimaado waa markaan aan ku celinayaa haday jirto muslimnimo haday jirto Soomaalinimo hadii wax la isu yahay waa haday dhab ka tahay dadka Soomaaliyeed in argagixisada la dagaalamo oo khawaarij la iska celiyo waa inay beledweyne imaadaan dawlad goboleedyada dadka jooga waa inaan halkan ka helnaa civil society-ga dadka Soomaaliyeed ee ah hay'adaha ama ururada civil society-ga waa in halkan laga helaa shaqadoodii waata shaqada laga rabo waatan waa inay u soo gargaaraan waa inay garab istaagaan magaalada beledweyne iyo shacabka reer Hiiraan waa in la garab istaagaan xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaa sheegay in si degdeg ah loo dhisayo buundadii ee shalay al-shabaab ay qarxiyeen Bulburtu waxay caan ku tahay iska warhayn shacabka iyo dawladda wada shaqeeyo waana rajaynayaa in intaas si laabaan hawshaas waan maaragtay tacsiyada kadib iyo mahad celintaas isku duubnaanta ah waxa meeshaas ku cad dhibaatadaas dhacday waxay cadeynaysaa in shabaab cidna ayna arxan u hayn cidna ayna xisaan u sameeynin cidna ayna maaragtay cafinaynin nololna ayna rabin cid noolaatana ayna rabin marka cidii rabtay inay dib isu dhigto cidii rabtay inay shabaab maaragtay xoogaa beer la hawsadaan cidii rabtay inay diin ka shaqeynayaan cid kasta oo maaragtay u fikiraysay wax yar oo naxariis ah ama cabsi ku jirtay waxaan leenahay dhiirada soo istaaga iska celiya shabaab waa cadow ilaahay waaye cadow shacab waaye cadow Soomaaliyeed waaye waana naloo soo diray iska celiya reer Bulburte inta maqneed waxa kale toon maaragtay baaq u diraya dawladda xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka hawlaha guud iyo dib u dhiska iyo wasiirada ay khusayso arintan wasiirka amniga iyo in alle intii ay khusayso waxaan si degdeg ah uga codsanayaa inay Bulburte yimaadaan maadaama ay laf dhabar u tahay buundadan isu gudubka iyo dib u xoreynta deegaanka in si degdeg ah buundadan dib loogu dhiso waana rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay uga soo jawaabaan madaxda qaranka qaarkood waan ismaqalnay wayna ku tala jiraan oo arintan emergency noqon doonta insha Allah reer Bulburtana marka horeba wadajir ay ku dhiseen injineerada dhisay waa reer Hiiraan qaarkood waana rajaynayaa inayna fogeyn oo ay soo bixi doonaan una soo istaagi doonaan inay deegaankooda dib u dhistaan warmurtiyeed ayaa laga soo saaray shir u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada wariyayna Maxamed Ciise Koona ayaa warka inooga diyaariyay waxaa shir xog waraysiga socdeenay intii u dhaxaysay 16 ilaa 18 bishan isugu yimid wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada shirka uu shir gudoominayay wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabduqaadir ayna ka qayb galeen wasiirada dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya xildhibaan Nuura Mustafa Mukhtaar wasiirada waxbarashada ee dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya oo kala ah mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ah wasiirka waxbarashada Puntland Maxamed Xaashi Dhoore oo ah wasiirka waxbarashada Galmudug Cabdinaasir Seerar Maax oo ah wasiirka waxbarashada Jubbaland Maxamed Cabdiraxiin Nuur oo ah wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed iyo Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere oo ah wasiirka waxbarashada Hirshabelle kulankan intuu socday ayaa waxaa la isla meel dhigay in la joogteeyo kulamada wasiirada waxbarashada ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si looga tashado xaaladaha jira xalna loogu helo caqabadaha waxbarashada heesto waxay isla garteen in la qabtay shirweyne dib u jihaynta waxbarashada ee Soomaaliya si loo helo talo wax ku ool ah iyadoo lagu martigelin doono daneeyaasha waxbarashada ee dowladeed iyo kuwa aan dawliga ahayn waxay isla qaateen in dib u eegis lagu sameeyo sharciga waxbarashada dalka iyo siyaasadda waxbarashada qaranka si loo helo hanaan cad oo qeexaya jihaynta iyo maareynta waxbarashada dalka
kaasoo waafaqsan nidaamka federaalka iyo shuruucda kale ee dalka. waxay isla meel dhigeen wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada waxbarashada ee dowlad goboleedyada in macallinku yahay udub-dhaxaadka waxbarashada ee dhanka baahinta iyo tayadhowrka. waxaa la isla go'aamiyey in dhaqaalaha ugu badan ee waxbarashada loo jiheeyo sare u qaaridda aqoonta, shaqaalaysiinta iyo horumarinta xirfadda macallinnimo iyadoo la waafajinayo hanaanka caalamiga ah ee tayeynta macallinka. waxay isku raaceen inay biyo kama dhibcaan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay waxbarashada u qoondeeyaan miisaaniyadda waalidiinta Soomaaliyeed ee ka qafiifinta culayska dhaqaalaha waxbarashada, taasoo dabooli karta baahida malaayiinta carruurta ah ee aan haysan fursado waxbarasho. waxaana shaki lahayn in maalgelin adeega waxbarashada ubadkeena aan lagu maareyn karin mashaariic kooban oo hay-ado ay bixiyaan oo kaliya. waxay hoosta ka wada xariiqeen in wadada kaliya ee furan si waxbarashada dalkeena loo hormariyo ay tahay in laga wada shaqeeyo waxbarasho heshiis lagu yahay oo waafaqsan nidaamka federaalka iyo shuruucda kale ee dalka, iyadoo mudnaan gaar ah la siinayo waxbarashada gabdhaha, barakacayaasha, dadka qaba baahiyaha gaarka iyo kuwa halista ugu jira inay u gacan galaan kooxaha afkaarta guracan iyo xasilooni darrada dalka ka wada, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. ugu dambeyn, wasiiradu waxay mahadcelin iyo bogaadin u direen macallimiinta iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee u istaagay waxbarashada ubadkeena, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka, iyadoo la garowsan yahay duruufaha amni iyo dhaqaale ee dalka ka jira. Maxamed Ciise Koona, M24 TV, Muqdisho. ciidanka dowladda ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka sameeyay magaalada Baraawe. wariyayna Ibraahim Hanuuniye ayaa warka inooga diyaariyay. xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Baraawe ee Shabeellada Hoose waxaa laga sameeyay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaaladaasi, iyadoo howlgalkaasi uu horkacayo gudoomiyaha degmada ee amniga Baraawe Ismaaciil Cabdullaahi Jaadane. ciidanka dowladda ayaa dhammaan xaafadaha ku faafay si ay u xaqiijiyaan amniga, waxaana howlgalkan uu qayb ka yahay mid lagu sugayo amniga sida uu sheegay gudoomiyaha amniga ee degmadu. gudoomiyaha amniga ee degmada Baraawe Master Jaadane oo ka hor hadlayay dhalinyarada magaaladaasi kadib howlgalkii ay sameeyeen ayaa sheegay in ujeedka howlgalladan loo sameynayo ay tahay sidii bulshada degmadaasi ay nabad u heli lahaayeen. annaka waxa waaye sidaan ay idin soo baarnay oo ay idin soo bixnay ayaa waxa waaye shaqadeena u gudaneynaa. halkii idinku dhex jirna waxa waaye markii ay ku imaato in la soo ogaado waa nagala dhex saaraa. in alaale inta guri ka ijaartay, in alaale inta qarisay waa la dambi. wiilkii waxa waaye shabaab oo la soo qabto odayga ka daba imaan doonow hadda wiilkaaga waxa waaye soo sheeg. wiilkii shabaab isku ogow waxa waaye dowladda iyo madaxweynaha qarankaba cafis u fidiyey soo dhiiba. oo waxa waaye wiilashan dhalinyarada u jeedaan waa waxa waaye wiilal Soomaaliyeed, adinka idin la mid yihiin, adinkan dalkiina iyo ummaddiina dhinac soo raaca. waxaan rabaa dhibaatada shabaabka ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ha u arkina Soomaaliya kaliya. shabaabku waa fallaago adduunka iyo meel walbana waa ay ka jiraan kooxo noocaas oo kale taa. dunida qaarna waa ay ka soo dhamaadeen, qaarna ilaa hadda way haystaa. Soomaaliyana waxay la mid tahay dunidaas oo kale waa ay ka soo dhamaan doonaan insha Allah. waxaan rabaa magaalo markii waxa waaye amnigeeda koow magaalada markii mashaariic iyo horumar ay imaanayaan waa magaalada waxa laga fiiraa inay amni tahay. meel aan amni ahayn ma horumartaa. Baraawe hadaad horumarkeeda rabtaan amnigeeda adinka iska leh. qofka koow oo dhibaya waa shacabka, qofka gaajaysan waa adinka, qofka waxa waaye nabadda waxa waaye dadkay u raadinayaan ciidamada iyo waxa waaye dawladda dhan waa adinka. hadda adiga waxa waaye aqarsatid oo guryaha ku xareeysid cadawga iyo wax ku dhibaateynaya aqarsid waxa waaye qofka koow oo dilaayo oo hub la'aanta oo waxa waaye dawladda difaacaysa waa shacabka. waxaan rabaa inaad si dhow ula shaqaysaan maamulkiina iyo ciidamadiina amniga gacmaha isqabsataan. annaka waxa waaye awooddeena waxa waaye inaan shabaabka duurkana kula dagaalanno, markeedin kusoo dhex dhuuntaanna inta u waarsano aan ka soo dhex baxsano. Baraawe marka loo eego degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose waa degmada ugu amniga wanaagsan leh sanadihii u dambeeyay. maamulka degmadaasi ayaa sheegay inay xoogga saaraan sidii degmadaasi cid kasta ay ugu soo dhiiran lahayd. ugu dambeyntii gudoomiyaha amniga degmada Baraawe Ismaaciil Cabdullaahi Jaadane ayaa sheegay in cid kasta oo ku nool degmada ay mas'uuliyad ka saaran tahay in kaalinteeda dhanka amniga ay ka qaadato oo si dhow ay ula shaqeeyaan ciidanka amniga. Ibraahim Suleymaan Hanuuniye, M24 TV. hay-adda shaqaalaha Somaliland ayaa tababar u soo xirtay agaasim waaxeedyada xuduudda shaqaalaha.
wariyeyna magaaladaasi Mukhtaar Carab ayaa warkan halkaa ka soo diray. hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya soo gabagabaysay tababar muddo 2 maalmood u socday agaasimo waxeedada xuduudda shaqaalaha ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda Soomaaliland. tababarkan oo ka socday xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa waxa ay bixinayay agaasimaha waaxda sharciga ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Cabdiqani Saleeman Jaamac. kulankaasi ugu horeyn waxa ka hadlay agaasimaha waaxda sharciga ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Cabdiqani Saleeman Jaamac isla markaana ka hadlay ahmiyadda tababarkan uu leeyahay iyo kaalinta uu ka qaadan karo socodsiinta hawlaha shaqo ee qaranka. waxaynu u fadhinay kulan 2 cisho socday oo tababar ah oo lagu tababarayay agaasimo waaxdada xuduudda shaqaalaha dawladda oo ujeedada kulankaasina uu ahaa in lagu tababaro xeerka shaqaalaha dawladda xeer number 97 2022 sidii loo xoojin lahaa dhaqangelintiisana ay ahayd ujeedada guud in agaasimo waaxdada xuduudda shaqaaluhu ay xeerka bartaan xeerka dhaqangeliyaan shaqaalaha ka hooseeya ee wasaarad kasta iyo hay'ad kasta dawladeedna ay gaarsiiyaan waxa xeerku siinaya xuquuqa iyo waxa waajibaad ay leeyihiin iyo waxyaabo ka reeban. nuxurku wuxuu daaranaa xeerkaas oo ansaxay 1 March 2022 sanadkan inuu noqdo xeer dhaqan gala oo dhaqangelintiisuna ay u baahan tahay dhammaan agaasimo waaxdada xuduudda shaqaaluhu inay marka hore ogaadaan wuxuu xeerku dhigayo qaabka loo raaciyo fulintiisa iyo nidaamkiisa. gabagabadii tababarkaasi waxaa soo xidhay hadal ka jeedisay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Marwo Aamine Xuseen Maxamuud. tababarkan wuxuu ahaa mid muhiimadiisa leh waqtigeediina inagu soo beegmay sidaynu ka warqabno xeerkii shaqaalaha oo dhawaan la ansixiyay ay hay'adda shaqaaluhu bilowday inay ku tababarto maxay ahaydey agaasimo waaxidadii iyo shaqaalihii kale si xeerkan ay cid walba u fahanto oo aanu u noqonin xeer hay'adda shaqaaluhu kaliya ku shaqeyso maadaama waxa kulligeen ina wada mideeya uu yahay shaqaalaha dawladda ama shaqaalaha qaranka xeerkan wuxuu laga maarmaan u yahay inuu gaadho agaasimo guud oo kasta wasiir kasta agaasimo waaxid kasta iyo intii ka hooseyso oo dhan ilaa iyo ka maxay ahaydey shaqaalaha tiimka shaqada ugu hooseeya inuu wada gaadho waa waajibkaana cidda fulin doonta anagu waa maanta uu naga soo wareegay wuxuu idinku soo wareegay idinkaana loo baahan yahay inaad gaarsiisaan shaqaalihii kale ee idinla shaqeynaya haddii la yiraahdo waxaanu kaloo idinka filaynaa inuu xeerka noqdo mid aynu ku shaqeyno oo inoo dhaxeeya xeerkan runtii maanta wixii ka dambeeya waxaynu ku dhaqmaynaa sidaa uu yahay ee inoogu qoran yahay ee laynoogu ansixiyey waa runtii waajibna saaran in sidiisa u raacno siyaasadii dalacsiinta midtan oo kale siyaasadihii 16 ahaa ee aynu hore u haysanay xeerkan mid walba gaar buu uga hadlayaa mid walba qodobada ka midka ah ee siyaasadana xiriirka la leeyahay uu tilmaamaya maanta waxaanu garanaynaa qofka shaqaalaha ay halkuu ka soo galayo nidaamka halkuu ka soo galayo ilaa iyo halkuu ku dhamaanayo maalinta uu ka baxayo inta jaran uu marayo ayaynu ognahay waxaynu ognahay shaqaalaha dalacsiinta u baahan inta marxaladood ay marayaan qodobada loo raacayo siyaasadda ay ku beesgaraysan tahay ee xeerka laga soo aasaasay waxaas oo dhan baynu fahansanahay oo maanta garanayna waxaan rajaynayaa inaynu sida quruxda badan waqtiga ugu wada qaadanay aqoon kororsiga isu weydaarsanay in maxay ahaydee wada shaqayntuna intii hore ka sii qurux badnaan doonto haddii la yiraahdo waan idinka mahadnaqaynaa runtii waqtiga wanaagsan ee aad geliseen shalay waxa qaatay tababarka dhammaan agaasimo waaxidadii wasaaradaha kala duwanaa ee qaranku lahaa maantana waxa tababarka qaadanayay hay'adihii madaxa banaanaa ayaa tababarka ka qayb qaatay haddii la yiraahdo tababarka waxaan uga sii gudbi doonaa inaanu isku duwayaashii goboladana aan uga faa'iideyno oo halkooda ugu geyno amaba halkan ugu yeedhno haddii la yiraahdo idinkana waxaanu idinka sugaynaa idinka filaynaa inaad shaqaalihiina gaarsiisaan wasaarad kasta iyo hay'ad kasta inay gaarsiiso qofka shaqaalaha ay haddii aanu weli waxaad daawanaysaa warka haweeney muuqaalbaahiyaha M24 TV imankana haddaa isla eegna akhbaaraadka caalamka ra-iisul wasaaraha UK ayaa 6 toddobaad kadib iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha Britain ayaa maanta sheegtay inay iska casilayso xilka ra-iisul wasaaraha Britain iyadoo noqonaysa ra-iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa taariikhda Britain ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxaa la degay barnaamijkeeda dhaqaalaha kaas oo muujado argagax leh u diray suuqyada dhaqaalaha isla markaana kala qaybiyay xisbiyada conservative-ka 6 toddobaad kadib
markii xilka loo magacaabay qodobkaasina wuxuu u dambeeyay warkayga habeen aad kala socoto shaashada muuqaal baahiyaha M24 TV inta ku kulmi doona wararkeena xiga sida ay nabadgelyo